dagaal u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka qarxay degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo. Wararkii ugu dambeeyay dagaalkaas iyo sidoo kale qasaaraha uu sababay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan AG oo caawa xiisad adag ay ka taagan tahay halkaasna dagaal saaka ilaa saacadan aan idin la hadlayno ka socday ayaa isagana qasaarihiisa idin soo gudbin doonaa. Maxaa xal u ah shacabka deegaanka? Wararkii ugu dambeeyay halkan ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal iyo xaaladda Muqdisho doorashooyinkii dhacay booliis markaasi isagana jirdil u geystay rag dhalinyaro ah oo xabsiga la dhigay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo booqataan waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto sidoo kale saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose faalan aragti nagu la wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxaa lagu soo waramayaa in ay ku dagaalameen ciidan kala taabacsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo taabacsan kuwa maamulka Jubbaland gaar ahaan wasiir Colujoog oo ah wasiir ku-xigeen ka tirsan dawlad goboleedkaasi Jubbaland sida ay xaqiijinayaan warar aan halkaasi ka helino waxaa la warinayaa in weerarkaas uu ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn xafiiska wasiirku uu ku leeyahay qayb ka mid ah isla gudaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxa ciidamada dagaalamay ay yihiin ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa militariga ee la geeyay gudaha degmadaasi Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo iyo ciidamo uu watay wasiir ku-xigeenka kaas oo la tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa gudaha magaaladaasi qasaare kala duwan ayaa jira oo dhimasho iyo dhaawac ah ugu yaraan hal ruux oo shacab ayaa la wariyay in uu ku geeriyooday halka tiro kale oo dhaawacna ay jiraan kuwaas oo la tilmaamay in loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaaladaasi Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo xaaladda ayaa caawa aanan deganayn waxaana la warinayaa in rasaas goosgoos ah laga maqlayo qayb ka mid ah isla gudaha degmadaasi ama magaaladaasi kaas oo u dhaxaysa ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii maanta Jubbaland ka tirsanaa ee ku dagaalamay gudaha maamulkaasi gaar ahaan degmadaasi Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo xiisadan maalmihii la soo dhaafay ayay dadku deegaanka sheegayeen in ay ka taagneed qayb ka mid ah isla gudaha magaaladaas kadib markii xarun caafimaad oo ku taala gudaha magaaladu uu guri ka dhigtay ama deegaan uu ka dhigtay wasiir ku-xigeenka waxaana arintaas carag ka muujiyay dad shacab ah oo qaybtood ku sugan gudaha magaaladaasi oo garab ka helaya maamulka magaalada ugu dambeynna la tilmaamay in arintu maanta ay gaartay gacanka hadal magaaladaas horey waxa ugu dagaalamay isla ciidan ka tirsan ilaalada wasiirkan iyo xubno taabacsan maamulka degmada Garbaharey xarunta gobolka Gedo ee dhinaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaalkii horey u dhacay qasaare kala duwan ayuu sababay ilaa heer magaalada qayb ka mid ah la gaaro inay ciidan soo buux dhaafiyaan oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan laakiin waan ay galeen odayaasha dhaqanka ee magaaladu lagu kala qaboojiyay xiisadu mar kale ayay soo cusboonaatay gobolka Gedo waxaa wali ka taagan xiisada u dhaxaysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dawlad goboleedkaasi waxa wararka aan helayno ay sheegayaan in haddu la warinayo in ciidanka waa hor leh oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan la dhoobay afaafka hore ee guriga wasiirka iyadoo laga cabsi qabo in ciidan kale oo dheeraad ah oo ka socda dhinaca Jubbaland ay gudaha u galaan gudaha magaaladaasi Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo sidoo kale xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii dhawaan degmada Doolow ee gobolka Gedo oo iyadana la tilmaamay inay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland tababar loogu soo xiray kuwa oo maalmihii la soo dhaafay halkaas ay ku tababareysay dawladda Itoobiya sidoo kalena markii tababarka loo soo xiray uu la hadlay gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo isla markaana u sheegay in deegaanada gobolka ay ka jiraan xiisado isdiidan oo waliba siyaasadeed iyo mid amni oo u dhaxaysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka garabka ay u yihiin ee Jubbaland waxaase uu tilmaamay in looga baahan yahay ciidamadu inay garab buuxa u noqdaan dawlad goboleedka Jubbaland iskana dhiciyaan cid kasta oo ku soo xadgudubta danaha iyo dawladnimada dawlad goboleedkaasi Jubbaland waa sida gudoomiyaha degmada Doolow uu horay u sheegay sidoo kale caawa waxa la warinayaa in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan degmooyinka qaarkood oo gobolka Gedo ka tirsan uu ka bilowday kuwa oo laga cabsi qabo inay sababaan in mar kale dib u qarxo dagaalkii Jubbaland iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya caawa gabaldhici waxaa la wariyay in degmada Doolow iyo deegaano kale oo ay gacanta ku hayaan kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland lagu arkay ciidamo hor leh oo la tilmaamay inay qayb ka noqon doonaan howlgallada iyo dagaalada tooska ah ee ka dhanka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab warbixinada kale ee aan helino ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta oo garab ka helaya dhinaca kuwa saraakiisha ee Itoobiyaanka ah ay kulamo kala duwan la qaateen
gudoomiyaha maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo kulankaas oo looga hadlay arrimo la xiriira xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale midda amni ee deegaanada Jubbaland si looga hortagi lahaa wax kasta oo lid ku ah ammaanka guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo lagu doonayay in lagaga hortago falalka lid ku ah amni darrada ama amniga kuwaas oo dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegteen mararka qaarkood ay ku lug lahaadaan kooxaha waxa loogu yeero argagixisada intaas ayaan ku dhaafeynaa saaxiibayaal xaaladda ayaa caawa aad la sheegaya inay u adag tahay oo dhinaca Jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya laga cabsi qabo in dagaalkii tooska ahaa ee deegaanada maamulkaasi ka socday uu si toos ah uga dhex bilowdo aynu markaan aadno dhinaca deegaan lagu magacaabo Eji oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xiisad u dhaxaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaad hubaysan oo ka soo jeeda dhinaca tuulooyin hoostaga gobolka Hiiraan gaar ahaan Jalalaqsi waxay wararku sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay ay socdeen ama ay taagneed xiisad aad u adag sidoo kalena cirka isku sii shareereysay marka ka sii dambaysa laakiin waxaa la wariyay in subaxnimadii hore ee saaka dagaal uu soo bilowday sidoo kalena qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay tirada la xaqiijiyay ee geerida ilaa iyo hadda dadka deegaanka waxa ay noo xaqiijiyeen 2 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah halka tiro kale oo dhaawacyo ahna la sheegay in halkaas ay ka soo gaareen oo dadka deegaanka ay iska difaaceen weerar la sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay ku qaadeen tuuladaasi Eji oo hoos tagta gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalka oo la isku adeegsaday hub leh noocyo kala duwan ayaa markii dambe istaagay iyadoona dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in wax khasaare ah oo dhankooda uu soo gaaray aysan jirin laakiin dhinaca maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ugu yaraan 2 qof ama 3 qof ay ka dileen halka tiro kale oo dhaawacyo ahna ay gaarsiiyeen laakiin wararkaas ma jiro warar ka madax bannaan oo xaqiijin kara iyo dagaalkan cidda sida rasmiga ah ee ugu lug yeelatay maadaama horey ay u jireen xiisado isdiidan oo dhinacyadan markaasi ka dhaxeeyay sidoo kale waxaa taagan oo deegaanka Eji dadka degan ka maqan wiil dhalinyaro ah oo horey looga afduubtay inta u dhaxaysa Eji iyo Jalalaqsi waxaana lagala degay gaadiid sida dadkiisu ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo haddana waxa uu ku jiraa gacanta maleeshiyaad hubaysan oo dagaal xoogan uu kala dhaxeeyo xubnahan weerarka soo qaaday ilaa iyo hadda saaxiibayaal lama ogo khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhacay tuuladan waxaa lagu ogyahay in horey ay uga dhaceen dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso in guriyihii shacabku ay lahaayeen dab la qabadsiiyey ama la gubay sidoo kalena in guud ahaanba dadkii shacabka ahaa la guuriyey oo laga barakiciyey sidoo kalena hadda la sheegayo in aysan waxba dad shacaba ku sugnayn oo la tilmaamayo in laga cabsi qabo in dagaalkii ka dhacay horey halkaas oo kale mar kale uu uga dhaco ma jiro xal waara oo laga gaaray dagaalkan mana jirto waan socota oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee dhinacyadan dagaalamaya sidoo kale waxaanay jirin oo ilaa iyo hadda aanan la ogeyn in dadkan ay ku sii sugnaan karaan deegaankaas Eji lagu magacaabo iyo in kale wixii ku soo kordhasay saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa Muqdisho aan dib ugu laabanno maanta doorasho ay markaasi dadka ku sheegeen ama dawladdu ku sheegtay inay tahay qof iyo cod sidoo kalena lagu dooranayo golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa bilaabatay guud ahaanba caasimaddu waa ay xirneed sidoo kalena ilaa iyo hadda waxa xiran wadooyinka qaar ee caasimaddu iyadoo dadka shacabka ah la arkayo wadooyinka waaweyn ee Muqdisho iyaga oo lugeynaya waxaa sidoo kale dhacay inta doorashooyinkan lagu gudu jiray xadgudubyo taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadirna waxa uu tilmaamay in askarta qaarkood ee dhibaatada u geysatay dadka shacabka ah gacanta lagu soo dhigay oo ay xiran yihiin kadib muuqaallo fool xun oo ka baahay goobaha codbixinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kamid ah dadka codkooda dhiibtay laakiin waxa ilaa hadda la isweydiinayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kaarka diiwaangelinta ama isdiiwaangeliyay ana qaadan kaarka codbixinta sidoo kalena uusan maanta codeyn miyuu biri codeyn doonaa amaba guud ahaanba doorashadan golaha deegaanka ayuu ka soo horjeedaa oo uusan raali ka ahayn mucaaradkiina waxa ay ku tilmaameen doorashadan inay tahay doorasho ay doonayso dawladdu inay soo caanashubto muddo 2 sano oo muddo kordhina ay ku qaadato laakiin aysan suuragal ahayn wuxuu ku soo koray saaxiibayaal umurahan iyo barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa danwayga intaas haddii aad ila dhamaadkana la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto sidoo kale saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose fala dhagtiin nagu la wadaagtaan